madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka degmada Baraawe caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Kulankan ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa kala warqaadasho xaaladda degmada u diyaar garowga doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee laga soo doorto Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dardargelinta dhisidda maamulka golaha deegaanka degmada Baraawe. Kulanka ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ali Siciid Faqi wasiiro maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo xubno kale. Bismillahir Rahmanir Rahiim. way bagge kamil raay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo wafdigiisa hogaamiyay oo maalinimada shalay booqasho ka kooy Baraawe caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wafdigaas oo meel raay iska koobanay wasiiri iyo qaybaha kala duwan ee dawladda isla saasoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xukuumadda federaalka Soomaaliya saasoo kale booqashadiisu shalay ka kooy qayb ku hay iyo madaxweynaha geeka kulamo may walwalday odayaasha dhaqanka degmada Baraawe taasoo meel raay madaxweynaha ka guurgalay uu soo xog wareysaday odayaasha dhaqanka xaaladda guud meel raay amni iyo dhaqaale iyo bulsho ka jirta meel raay degmada Baraawe taasoo xaqiiqdii madaxweynaha sida caadadan hay'ti degmooyinka booqashooyinka ku sameeyo uu la kulmay qaybaha shal duwan bulshada xaqiiqdii mayba meel raay odayaasha dhaqanka degmada Baraawe madaxweynaha ku mahadnaqayna sida uu dhowr jeer booqashanka kooy caasimadda isla saasoo kale inuu mar walba uu la kulmahay odayaasha dhaqanka muhiimadda siyaasiga iyo tixgelinta iyo horumarada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku sameeyay Baraawe marka intaasba meel raay ku mahadnaqayeen isla saasoo kale madaxweynaha iyo warbixin way ku sii safar shay inta ka aadanay oo aan ka muhiimsanahay booqashada in meel raay uu sii ra'iisul wasaaraha ka kooyan caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Baraawe ujeedadan ka weyn hayti maadaama dadka Soomaaliyeed iyo xilliga la jarab la socdo in doorasho ah Baraawna ku mid ah deegaan doorashooyinka Koonfur Galbeed oo lamada magaalo ee Baydhabo iyo Baraawe siyo booqdan xaqiijiyan in meel raay sheegada meel Baraawe aan diyaarsanteen in doorashada la ka qabada iyo amnigi intaba si lan xaqiijiyo markan way haytay tilanka kuurgala kora silanka qabada meel raay doorashada Koonfur Galbeed iyo madaxweyne Cabdicasiis mar walba may hormuud ku haayay sidii wadankan ku dhiifadii doorasho xor ah oo meel raay helis la ka waday halkan waa xaqiiqdii madaxweynaha odayaalkii iyo bulshada reer Baraawe mayba warbixintaas ku siiyay ani dawladda diyaaran ah sidanka dhaqsiya badan meel raay ka bulshahan diyaar garoowan sidii baarlamaanka 12 doorashadiisa oo ka diyaar garoolaan aqalka hoosana maadaama deegaan doorashada lamaadiyada isla saasoo kale madaxweynaha iyo booqashooyin jeemay ku mid haytay safarku suntan kooy soo odayaasha dhaqanka ku warbixiyay dawladda Koonfur Galbeed may muddooyinka dambe Baraawe ku waday dhismaha golo deegaan ee qaban qaabadiisa horeen socday oo bulshada wada tashi wasaaradda arrimaha gudaha la wadii bulshada qaybaha shal bedelan sidii bulshada iyo aan isku doorada fadan golo deegaan oo meel raay xaqiiqdii bulshadaas ku xulo doonta madaxweynaha meesha dawladda intii meel raay diyaaran ah odayaasha dhaqankii bulshada reer Baraawe diyaaran nagalan isla saasoo kale sidanka dhaqsiya badan sidii golaha deegaanka Baraawe la dhisay odayaalkana doorku ku aadanay maadaama ay dadka xulo doona mise doorada doonayeen odayaasha dhaqanka aan diyaar garowaan dawladana diyaaran ah madaxweynahana meel raay balanqaadshi ku mid haytay intii dhammaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya degmooyin shal bedelan la ka dhisi doono golayaasha deegaanka isla saasoo kale dawladda meel raay mayba lagu warbixiyay mashaariic dawladda ka fulay doonta Baraawe intaas ma haytay meel raay warbixinta madaxweynaha iyo odayaalka isugu sii magaalada Baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa noqon doonta magaaladii ugu horeysay ee ka dhacdo doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee 11 sida uu shalay sheegay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kadib booqasho uu ku tagay magaalada Baraawe runtii waa magaalo nabdoon qurxoon Ilaahay wax kasta isugu daray bad iyo berri wax kasto Ilaahay wanaagsan uu siiyay waxa kale fursad ah maanta inay magaaladan ii tahay magaaladii ugu horeysay aan rabno inaan ku qabanno doorashooyinka aqalka hoose haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala idmo Sumayo Daahir Salaad VOS TV Muqdisho.